Hello, dear learners. Welcome again. This is Afla Academy. I am teacher Masala. Okay, today waxaan sii gudgalaynaa casharkeena caadiga ahaa. Maantani waxaan baran doonaa insha Allah conversation ayaan baran doonaa. Conversation kaani marka waxaan rabaa in aad sameysaan ama aad aadaan playlistiga si marka casharada sida isku xigxigaan aad u akhrisatiin. marka kani wuxuu noqon doonaa casharkeeni saddexaad wada sheekaysiga insha Allah dileeraado marka fadlan channelka dadku cusubta subscribe saaro haddii aan joogteena like share and comment conversation about papaya and acero marka leenahay papaya waxa la yiraahdaa yani qofku wax iibsanayo ayaa waxa la yiraahdaa papaya and seller sidoo kale waxa la yiraahdaa qofka wax laga iibinayo oo dukaanka joogo ayaa waxa la yiraahdaa acero marka wada sheekaysi ku saabsan yani iibsada iyo iibiye so papaya waxaan dhahnay qofka wax iibsado waaye waxaan dhahnay papaya waxa la yiraahdaa qofka wax iibsado waaye like customer ku noqon kara papaya waxa la yiraahdaa customer waxa waayo waa qofka wax iibsado waaye seller waxa weeye the provider waxa weeye provider gi waaye qofka wax diyaarinay oo meesha dukaanka u yaalana waxa la yiraahdaa a seller so now here we have now the buyer and the seller as isku xigaan marka buyerka wuxuu dhahay hello dear seller hello seetai dear seller iibsade seeta ganacsade seetahay waa sellerki wuxuu dhahay marka ma iibsadii wuxuu dhahay kam soo dhaw how can I help you seen ku caawiya dear customer waxa weeye macaamilkii waa qofku wax iibsanaya la customer macaamilkii waa how can I help you seen ku caawin kara dear customer macaamil seen ku caawiya so meeshan waxa la isticmaalayaa luqad loo yaqaano polite language luqada cadaabta so yani qofku yani ganacsiga dukaanka rabo inuu wax ka iibsado wuxuu isticmaalay dear oo ah ayna tusayso inay tahay luqada cadaab so asana marka qofku wax laga iibinayo asana wuxuu isticmaalay welcome iyo dear customer sidoo kale meesha waxa noqon how can I help you ku caawiya yani meesha waxay ku jirtaa marka xishmad ayaa ku jirta buyerki marka wuxuu ugu jawaabay thank you waad maxsantahay thank you waxa weeye waad maxsantahay I need waxaan u baahanahay to buy inaan iibsado ama inaan gato ama to sell inaan gato something shay from your shop inaan ka gataan rabo wax dukaankaaga inaan wax ka iibsado ayaan rabaa dukaankaaga inaan wax ka iibsado ayaan rabaa something shayal waa inaan ka iibsado dukaankaaga ayaan rabaa sellerki ama qofkii providerka ahaa oo meesha joogay marka wuxuu dhahay okay hagaag waa okay hagaag what did you need now maxaad u baahan tahay hadda buyerki marka wuxuu dhahay what is the price meeqa waa maxay qiimaha waa what is the price waxa la yiraahdaa qiimo the cost waa you can also say cost waa dhigi karnaa you can also use cost what is the cost what is the price of a trouser waxa weeye waa surwaal trouser waxa la yiraahdaa surwaal what is the cost of what's the price of trouser surwaalka qiimihiisu meeqa waaye t-shirt fanaanad shati and vest iyo garan intaana rabaa qiimooda meeqa waa each mid kastaba qiimeed meeqa waa so marka sellerki ama qofkii dukaanka joogay wuxuu ugu jawaabay the cost qiimaha waa the cost waxa weeye qiimaha of each mid kastaba is wixii joogtaa buu yiri a trouser surwaalka ka soo bilaab wuxuu joogaa buu yiri $7.5 $7 iyo bar t-shirt fanaanad wuxuu dhahay $3.45 $3.45 shatiga wuxuu dhahay $8.5 $8 iyo bar vest garantan wuxuu dhahay $2.4 $2.40 so sidaa daraadeeda are you ready customer diyaar ma tahay macaamil qaali diyaar ma tahay are you ready customer macaamil diyaar ma tahay buyerki ama qofkii dukaanka joogay wuxuu ugu jawaabay sorry buyer qofku wax iibsanayo qofkii wax iibsanayay ama qofkii oo rabo inuu iibsado wuxuu dhahay marka hoogayo very expensive aad ay qaali u tahay expensive waxa weeye qaali waa ni rays sana
أي قالوا تهواي is there no discount ما جرتوميا واحد ديسكاونت أما واحد الربا عين اسمه جرميا ديسكاونت واحد يرد عين سوا markii sheeg wax laga reebayo saalo kale hadii $8 loo dhahay waxa la geyn karaa 7.5 ilaa $7 so intaas waxa la yiraahdaa discount so sheeg markii hoos loo soo dhigo waay sala marka dukaanlihi ama qofkii meesha joogo wuxuu jawaabay there is ha way jirtaa but laakiin buu yiri each one mid kastaba I am selling waxaan kaaga iibinayaa the last price qiimihii ugu dambeeyay mid kastaba waxaan kaaga iibinayaa ama aan kaaga siinayaa qiimihii ugu dambeeyay bayarkii marka wuxuu dhahay okay hagaag thanks aad u maasantahay thanks aad iyo aad maasantahay so that's the end of our lesson today so I wish to subscribe and get the next video inshallah.